ummadda Soomaaliyeed ay meel kastoo adduunyada ka joogtaan waxaan maanta idinku hambaliyeynayaa ciidda wadaniga ah ee Soomaalidu leedahay ee ka kooban tahay ciidaasi 26 Juun 27 Juun iyo 1 July wadankan Mareykanka aan jooga khaasatan magaalada Minneapolisna waxa looga yaqaanaa ciidii isbuuci Soomaalida ama wiigi Soomaalida ama Somali Week aad baa loo baashaalaa waa lagu sii wada tashadaa waa la soo dhaweeyaa aniguna maanta ummadda Soomaalidu dunida inta leeg meel walba joogta iyo dalkeeniba waxaan leeyahay hambalyo Soomaaliyeed hambalyo loo dabaaldego markaynu qaranka ahayn intaan dhibaatooyinka iyo kala qoqobku inagu dhicin barqura ummadda Soomaalida wada taagi jirtay dawladda oo dhan baa la fasixi jiray iskuulada la fasixi jiray shaqaalaha la fasixi jiray qof walba meeshii ka dirbeed xafladda iyadoon cidina soo baxoran ayaa la isku soo bixi jiray la wada baashaali jiray imikana ma liidano oo aniga idin sheegay Somali Week aad baa looga qiimeeyaa wadankan ku noolahay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee hambalyo waxaan leeyahay qabkeeni mee Soomaalay quwaax qansaxiye qaxooti qayrkeen bay naga reebeen daan dib u qoraansado qarnigii leegada isticmaalkiina qabsaday ee qayrkeen naga reebay ee ikhtiyaarkii naga qaaday ee qaybsay dalkeena taariikhdii laga qoray qaabkii looga adkaaday dhalinyaro qiiraysan dagaalkii qadhaadha ay ku qaadeen markay qaabil waayeen qaran bay noo saxeexeen laba qaybood ka koobanoo qaaradoodii bay ku noqdeen oo qisada calankeenu waa mid qaayaweyno qotadeedu dheerto qof ma wada dhameeyee Soomaalo qandoodo qaaradaha adduunyada iyo quruumaha aan lagu tirin qadankii hilaaciyo qoraxdii bidhaantee qaadirnoo iftiinsheen ku qacsiinay araggeen Soomaalida quweeyeen 60kii qotominow waxaad qurux la midab tahay irka qaabadiisa xidigtaa la qoray dhexdaada lagu qiyaasaa dadkaaga lagu qorsheeyo qaarba geeska joogaan qoloqolo kufaan iyo qaxooti u dhamaado qiimahaagi soo noqoye qaaradaha ka muuqo kii lagu qaboobee weligii qotomo noqo insha Allah